السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأكو فرح سنة هاي إن داونيست عشر كان waxaan rajeynaa inaa wax badan aad ka faa'iidi doonto oo ka faa'iideysan doonto maantay casharkan waxa uu ku saabsan yahay sida sabiyaha application-ka la yiraahdo ama software-ka sabiya loo yaqaano sida loola soo dego kombiyuutarka kadib loogu shubto loona isticmaalo run ahaantii waana muhiim program-kan aan maantay rabo inaan idin tuso waa software aad u muhiim ah waxa uu qabtaa ama uu sameeyaa kombiyuutarka iyo telefoonka in la iskula xiriiriyo oo faylasha kadibna la iskaga tuurto ujeedadiisu horta waa intaas waxaa kaloo looga maarmaa program-kan la yiraahdo sabiyaha in aad kombiyuutarkaada USB aad isaga iyo telefoonka iskula xiriirido oo kadib xogtii aad uga shubatid marka daawasho wanaagsan ka horta waxaa la rabaa inaad internet haysato markaad la soo degayso si aad app-kii u hesho sabiyaha ahay hadda marka Chrome-ka application-ada waxa laga soo dego internet-ka oo la isticmaalayo Chrome waad isticmaali kartaa waxaad kaloo isticmaali kartaa Microsoft Edge mid la yiraahdo asagana waa jira default-iga waxaa laga yaabaa kombiyuutarkaada inuu marka hore kugu jiro Microsoft Edge horta aan sheegayo waa kaas waa asagana browser kale internet-ka kala soo degi kartaa Chrome-ka waad isticmaali kartaa waxaa kaloo isticmaali kartaa start button-kaada tagay kadibna internet explorer aad ku qoray internet markaa qorto internet explorer marka adigu ku hadda app-kan aniga midkan oo Microsoft iska leedahay aan ku update gareysay laakiin default-iga marka hore marka internet qorto internet explorer application la yiraahdo oo si default window wala socda ayaa ku soo gali doona kaas ayaad wax kala soo degi kartaa haddii marka aad haysatid tusaalaan Chrome oo kale kuwaasna hadda waa okay let's go marka ka soo gudub qaybtaas waa browser-ka wax kala soo degi lahayd inaad hesho waa muhiim browser-ka marka aad hesho waxaad tagaysaa meesha wax looga qoro search-ka kadibna waxaad ku qoraysaa Sabia hadda ani waa soo qabtay free download intaas markaa qorto inta raa leedahay kadib marka waxa ku soo baxay options badan oo fara badan waxyaabahan marka kuwa falsa oo ku jiraan kuwa fiican oo ku jiraan laakiin midkan ayaan tijaabiyay oo fiican ay u fiican yahay linkgaas ay ku qoran tahay download Sabia PC for Windows-ka 2.8.0.2 kaas ku dhifanaysaa linkgaas marka hesho qaab ahaan wuxuu yaalaa sidaan u yaala interface-kan iyo qaabkan ayuu leeyahay qaybta hoose marka hoos soconaysa kadib maxaa ku dhifanaysaa free download ku dhifanaysaa free download marka ku dhifato marka automatic hore ka bilaabay shaqada marka uu ku dhameeyo marka sida uu soo qaybtaas marka ay ku dhamaato ayaad waxa sameynaysaa hadda qaybtan aniga xataa hore ugu dhamaatay laakiin adiga sidaan oo kale marka kugu sameysmo wax yar internet-kaada ku xiran tahay mar walba intuu qaab u soo dego marka uu sidaan oo kale complete oo kugu dhamaado right click-ga ku leedahay show in folder oo kale si macna meesha uu ku yaalo aad u aragto mar walba oo aad browser-ka wax kala soo degto qaybta library-ga download disk uu ku gali doona download disk oo sabiyaha ama application walba la soo degto uu ku gali doona marka waxa laga rabaa hadda si kale ku soo raadi kartaa jirta hadaad kombiyuutar inta shaashada imaato aad kali ku siido qaybta download disk waa helaysaa macnaha marka almuhiim sabiyi marka midkan hore u soo dejiyay kan dambana waa kana waa isla mid color-kaas uu leeyahay qaabkaas uu yeelaa marka aad sabiyaha setup-kiisa hesho waxa sameynaysaa si aad ugu shubato kaliga ku siinaysaa kadibna install leedahay install marka tiraahdo wax yar u baahan yahay oo aan dhib badnayn oo hubina kadibna gastiya leedahay ana waxa leedahay accept the agreement-iska kadibna nagastiya leedahay nagasti kadibna install wax yar uu isku wareeji doona oo socod doona marka uu ku dhamaado hadda waa kaas application-kii Sabia waa noo soo galay kombiyuutar waa simple marka hore maxaan sameynay finish hadda midaan iska dheh
sabiyahan la soo degnay aan raadsanay kadibna waad ku install garaystay computerkii ugu dambeys marka waxaa la rabaa marka aad isku xirayso asiga telefonka kaliya ku siinaysaa kan hadda waa program kale oo iska xiraysaa labadan option waliya marka join iyo create macna mar walba telefonkana kiisana waa sidoo kale join iyo create mar walba labada aaladood telefonka iyo computerka la isku xiraayo marba meeshii aad ku jirto maana ka kale dhinaciisa kala tagayda tusaale ahaan waxaa sameynaysaa computerka waxaa ku dhufanaysaa create telefonkana join ka soo dhahaysaa marka sabiyaha sidaas loola soo degaa isticmaalkiisuna waa wax yar oo fudud oo qofka kaliya inaa baraatikeedo bis u baahan sidaasna waa loo isticmaalaa faa'iidada uu leeyahayna run ahaantii wax la soo koobi kara maahan horta waxaa ka mid ah intaad flash soo gado oo flashka laba af inuu leeyahay haddana aad u sii baahan tahay oo computerka iyo telefonka aad xogta markaad isdhaafsanayso intaa flash ku kala qaadi lahayd horta taas meeshuu ka saaraya labo haddii aad flashaysan option kala jiro oo telefonka iyo computerka xogta lagu kala qaato oo la yiraahdo USB harkaan jaajarada oo telefonada lagu dabeysto inaad ayadana u isticmaasho option kale ahayd oo boosku ka saaraa xataa uma fiicna flashada la gelgalayo computerka USB-da la galayo godadkana way dilaan oo macnaha dhibaato u geystaan mararka qaar fayrsiya ka dhasha laakiin programkan wireless oo sabiyaha mar walbo file transferring sameynaydo oo xog aad kala gudbisanayso waa muhiim computerka wax ku jira aad ka soo qaadi kartaa telefonka wax ku jirana waad ka qaadi kartaa oo computerka labadaba ku geey kartaa kaliya marka optionskiisuna dib badan ma lahan marka la isticmaalayo waa wax yar oo iska sahlan oo simple marka waxaa laga rabaa adiga marka telefonka iyo isku xirto iyo sabiyaha isku xirayso options badan inaad iska xaqiijido inuusan telefonka iyo computerka inuusan hotspot wax la yiraahdo inuusan furayn oo kale shardigaas ugu weyn inta kalena waa wax yar oo sahlan oo qof uu fahmi karo qofkii hore u isticmaali jiray qofkii cilada iyo waxyaabo kale ay ku yimaadaan commentiga ayuu ugu soo reebi karaa oo si gooni ula soo xiriiri karaa marka programkan sabiyaha qof walba inuu aad u isticmaalaan rajeynayaa qofkii adigu markaas uu versionskiisa ama aalada uu isticmaalayo uu support gareynayo waad ku mahadsantihiin la socodka iyo daawashada casharada mar walba waxaan soo gudbi doonaa casharo aan isleeyahay baahida dadka markaas taagan waa lagu xali karaa qof walba cilad ay computerka dhankiisa ka haysatana si gooni commentiga waa igu soo xiriiri karaa oo ciladaas uu sheegi karaa waxyaabo inta badan aan diradda saari doonana waa applicationska qaababka loo isticmaalo sida loogu shubto waxyaabahan la yiraahdo ICT skillska xirfadaha oo qof walba oo computer uga baahan yahay maadaama maanta uu teknolojiyada adduunku yahay marka saaxiibayaal waad mahadsantihiin mar kale waa mahadsantihiin kun subscribe ayaan gaarnay wadadii waxaa noo bilaabanaysa 1 million subscribe aan ku gaari lahayn qof walba casharka daawada waxaa laga rabaa inuu sii share gareeyo comment inuu bixiyo like sameeyo dad kale oo naga qarsoon ama aysan warbixinteenu gaarin si aan u seelno waanad mahadsantihiin qalbigan idin kala socdaa commentigiina yaan balideena waan arkaa anigana mar walba sidii aan waqti ayaan raadinayaa sidii aan casharada kugu soo gudbi lahay cashar dambe oo xiiso leh iyo isku soo laabasho wacan waana salaamantihiin